subax kasta waxa ay qabataa xabaasha hooyadeed inta ay gosha ka gasho ayay ka dul oydaa una sheegtaa dabadeed in aanay helin daryeel. hooyadeed xaawi waxa ay u dhimatay udub uu odaygeedu ku dhuftay kadib markii arigii ay raacday neef ka mid ah dawaco ay ka cuntay. rajaydani waa agoomad uu aabaheed nool yahay. gabadh kale inta uu guursaday ayaa uu iyadana bannaanka u saaray. ma oga baahideeda kamana war doono xaaladda nololeed ee inantiisu ay ku sugan tahay. dareen aabbanimo ha joogee kol kasta iyada oo eedla ayaa uu canaantaa. waxaa had iyo good disha ayadeed oo ka firdhisay gurigeedii. ma hesho cid u naxariisata, cid caawisana haba sheegin. in la kaalmeeyaa ha dambaysa ee iyada ayaaba la dhibaa. maryo cidima siiso oo intii ay hooyadeed kaga dhimatay oo karkarmay ayay weli sidataa. guri ma laha oo maalinba qolo ay qaraabo yihiin ayay u tagtaa. dadkii waxa ay u bixiyeen arrad meerto oo ay uga jeedaan in ay tahay tudhar xun oo wareeg badan. waxa ay ku nooshahay caalam ay rag badow ahi kula nool yihiin. waa rag aaminsan in ay dumarku ka caqli yar yihiin, waana rag u yaqaana haweenku in ay yihiin carruur raad wendhigaya. waa rag aaminsan dumarka iyo adhiga in ay riyuhu qaalisan yihiin, sababtoo oo ah waaba kii gudcur xaawo ku dilay la hayeesh ah oo ay dawaca ka cuntay. waa ay ka naxaan marka ay gabadhi u dhalato, waana ay ku caayaan ninka loo dhalo. isaguna si aanu u ceeboobin muddo badan ma tago golaha ragga. marka uu wiil u dhasho si ka duwan sida hablaha ayay ugu dabaaldegaan. madaafiic ayay u ridaan, wayna u xafladeeyaan. arrad meerto cuqdad ayay u qaaday rag ku sheegii badowda ahaa. waxa ay ku tashatay maalin uun in ay dumarka u aarguddo. haddii ay cadceeddu kownka ilayso, dumarku waa nuurka quluubta ifiya, waa naxariista nolosha bila, waa quruxda wanaagga oo idil uu ka shidaal qaato, waana beerta dhasha aadamaha ee weliba daacadnimada iyo kalsoonida laga dhaansado. waa kaliil cadceeddu ay cirka barhtankiisa ka soo ganayso fallaadho dab ah. meeshu waa ban abaar ah oo laga hayaamay. arrad meerta oo cidle lagaga guray ayaa keligeed sii luudaysa waddo geedigii uu budliyey boodhna ka kiciyey. rajeed dayacan weeye oo aad bay u dhuuban tahay, caatana ay u tahay. waxa ay si lama filaan ah u aragtay gabadh geed hoostii baaxaadegaysa. inta ay dhankeedii u oroday ayay dul timi. waa hooyo uur leh oo foolanaysa. waxa uu nabarku qabtay iyada oo geedii reerkeedu uu yahay. laakiin raggii ragga ahaa ee isku haysay inay caqli badan yihiin cidladaas ayay kaga guureen. xataa qof u wehelyeela ugama aysan tegin. arrad meerto waxa kusii shidmay ciilkii ay ragga u haysay. waxa ay mar labaad isku caleemo saartay in ay iyadu calanka haweenka u qaado oo ay u aarto. roob mayay ah oo barqa qaaday ayay qayaadiisii qaboobeyd naflaha dhabanaaninaysaa. waxa udgoon cajiib ah sameeyey saxansaxadii roobka iyo caraftii ubaxa. cidaraha waxa baradhaafiyey heesta iyo codadka shimbiraha. malaayiin balanbaalis ah oo boqolaal midab ka kooban ayaa si qaab wacan u dulduulaya banka. xareed ayaa durduraysa, waxaana ubax durdurka dheegiisa ka baxay daawanaysa gabadh joog iyo quruxba leh, si farshaxan lehna u xidhan cunaabi cusub. boqorka iyo dhaclaha iyo weliba quruxda huga ay sidato waxaa boqolaab ka badan quruxda ay u dhalatay ee eebba ku abuuray. qofka arkaa waxa uu ku doodi lahaa in ay tahay aadmi eebba abuuray tan ugu qurxoon. laakiin waxaa malaha saxsan in lagu tilmaamo in ay tahay qofka labaad ee yuusuf ku xiga. iyada oo dhoolla caddaynaysa oo ubax caraf badan gacanta ku haysa ayay dib xasuustii u celisay. waxa ay ku noqotay 5 sano ka hor markii hooyo amran oo rag sababtii u silcaysa bankan kula kulantay. hooyo amran ayaa kafaalo qaadatay oo korisay arrad meerta. waxa ay tustay dareen waalidnimo, waana ay korisay. mar qura ayay qurux aan laga filayn la soo kacday oo si wanaagsan u kortay. waxa uu soo haasaawo tegay rag guurdoon ah, mid kastaana hunga ayaa uu kala noqdaa. wayna ku gacan saydhaa arrad meertu rag oo idil, maxaa yeelay waxa ay aaminsan tahay madaxooda inuu ku hoos jiro caqli yar oo dhadhay, kaas oo aaminsan in dadigu maangaab uu yahay. waxa ay aaminsan tahay in ay maalin uun ragga ka aarsan doonto. arrad meerto waxa si lama filaan ah u afduubtay col oromo ah oo soomaalida kusoo duulay, waxaana guursaday boqorkii oromada. qalbiga inta ay ka xaday ayay boqorkii ka dhigatay kubad yar oo ay hadba meesha ay rabto ku tuurto iyo tuumbo ay amarada si dhex mariso.
dadkii Oromada ahaa magacii Arad Meerto way kari waayeen oo Araweelo ayay ugu dhawaaqeen. waxa saaka bariyay waa aan qurxoonayn oo dhiilo wata. boqor Kaasho waxa uu hor taagan yahay 100,000 kun oo ciidankiisa ah. waxa uu ku amray in ay Soomaalida weeraraan dhammaan raggana ay dhufaanaan. waa amar ay Arad Meerto oo imika Araweelo loo yaqaan ay u soo dhiibtay. ciidankii sidii ayaa uu yeelay. raggii Soomaaliyeedna in badan oo kamid ah way dhufaaneen. Araweelo iyada oo ka faa'iideysanaysa awoodda boqorkan ay iyadu sida dadban u maamusho, waxa ay kaligeed isku calaamad saartay boqorada Soomaalida. waxa ay ciil iyo cuqdad raagtay kula dul dhacday raggii Soomaaliyeed. waxa ay jidaysay in ragga la dhufaano oo xiniinyaha laga siibo. hadday boqorada qaar kolka ay nasanayaan ciyaaro dhaqameed amaba heeso ku mudadaashaan, iyadu waxa ay ku nasan jirtay cabaadka ka baxaya ragga la tumayo. waxa caado ay ka dhigatay habeen kasta in ay seexato iyada oo maqlaysa qaylada ka baxaysa ragga xiniinyaha laga saarayo. sidaas ayay Arad Meerto taariikhda ugu gashay magaca Araweelo, kuna noqotay boqorad xukunkeedii dumarkuna ay mahadiyaan ragguna ay nacdalaan.